haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad i aragto magacaygu waa Zio waxaan channelka kusoo gudbiyaa qisooyin xaqiiqo ah si diiran ayaan waxaan kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan ibliis markuu daaliyan ilaa asxaabe meel uu fadhiistay maxaa dhacay sheedaana isoo sharaxay wuxuu yiri aabo ma ninkan miyaad ku daashay aniga waswaasinaa wili muddo yar maskaxdiis buu saas ku abuuray ibliisa daalay oo fadhiistay uu yiri may ninkan nin loo gali kara maahan sheedaana soo qalab qaatay maxaa isleedahay way dhaceen fiidiyogan dhamayso alaab yaabi doonee qisada maanta aan idin hayo qisooyinkii hore way ka duwan tahay waa qiso aad iyo aad u cajiiba haddana ku cimri qaadasho mudan qisadan ayaa maanta waxaan idin kugu hayaa nin 700 sano oo ilaahay baryay ugu dambeyn muxuu uu sameeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة ولكن الزيو إذن الله أنا وعافمات قبا لما أنتي وحا إذن الجينا أنا ضي عافمات قبطان مالو البدوني ذاك الجوبتان يسو دبادة عابد برسيسة وحا أو أها وذات أو رشي غير بني إسرائيل أصيغو أو أها آت آمنة هداني الله سبحانه وتعالى كحيران wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala caabudayay muddo la eg 700 sano hal maalin sheedan ma uu waswaasin haddana dambi ma uusan ka galin Allah subhanahu wa ta'ala maalin walba wuxuu ahaa mid u taagan raaligelintii ama cabsi uu ka cabsanay Allah subhanahu wa ta'ala mawluciisana ma uusan ka soo dhaxbixi jirin wuxuu ahaa nin magaaladaas dhan laga yaqaano in uu yahay ninka ugu caabudaada badan waxaan dhihi karnaa muddo aad u dheer waaye muddo intaas la eg dambi intaa la egne uu Allah subhanahu wa ta'ala ka gelin wuxuu ahaa adoon ilaahigiisa ka cabsado mawliciisana aan ka soo bixin barsiisa ibliis ayaa soo weeraray si uu ugu waswaasiyo caabudaadan oo Allah subhanahu وتعالى وعبدايو بس أسي إيو إبليس محاد أحمر سدوس وجوليستي سدا وذ أكتهين إبليس الله سبحانه وتعالى أيو بلان لقلي هدنا ما أقولوا قف الضون أو إلهي أتاجن هد كان عبسنايو عبدايو جرت كيسني أديدن مالنت قيامه أو مالنت جريدة تمادو إن لعذابه ومرنو أقولانين إن وليه سعبدو oo yani fursad uu ku helo inuu ilaahay caabudo kaba sii daran dadka magaalada inay isku sheegaan qofkaas waa nin sheeqa waa nin aan loo gali karin waa nin wadaada waa nin yani alihiisa ka cabsado waa nin aan moolac ka soo bixin bal ka waran ibliis wuu u soo qalab qaatay si uu waswaasiyo balse barsiisa ibliis wuu iska xijaabay meel yar uu ka soo galan uu waayay si kasta ayuu waswaasi wax walba ayuu sameeyay laakiin may intaasoo san wuxuu ahaa mid aliisa ku xiran oo sina loo waswaasi waayay daawada maxaa isleedihiin uu dhacay ibliis ayaa daalay kadibna meel ayuu fadhiistay wuxuu yiri may barsiisa ma aha nin loo gali karo nin la waswaasi karo nin wax yani maskaxdiisa waswaas intaas ay lagu abuuri karo maba ahanbo ibliis sida wad ogtihiin dadka jirkiisu dhex galaa wuxuu oo yani uu ka dhaadhacsiina adduun wuxuu ku leeyahay waxa tahay qof karti leh qof soo dil wuxuu ku leeyahay waxa tahay qof karti leh wax dhac wuxuu ku leeyahay dad dulmi war dad ay maxaa qof cabsanay ma tahay markaas qofkii uu isla hadlaa wuxuu isleeyahay waxa tahay ban qof yani awood leh dadku waa ay kartaa waa dulmi kartaa balse barsiis ma uusan nin waxa soo dhanbo qaato maxaa u daaraysaa meeqa sac taagan tahay intaan dhan salaad lama tukanay maxaa dambiyo gashay maxaa intaan toobad keentaan ibliis markuu daaliyan ilaa asxaabe meel uu fadhiistay maxaa dhacay sheedaana isoo sharaxay wuxuu yiri aabo ma ninkan miyaad ku daashay aniga waswaasinaa wili muddo yar maskaxdiis buu saas ku abuuray ibliisa daalay oo fadhiistay uu yiri may ninkan nin loo gali kara maahan sheedaana soo qalab qaatay maxaa isleedahay way dhaceen
fideogan dhamayso alaab yaabi doonee shaydaankii wuxuu soo samaystay bashar bini aadan wuxuuna u yimid barsiisa oo moolcis iskaaga jiro salaadiisa iska tukanayo alihiisa iska tuugaayo waxaan ku dhahay asigana iska qashoocsan agtiisuu salaad ku xirtay waa shaydaan salaad ma tukanayo laakiinse ninkan ay u socdaa si uu u waswaasiyo kadib salaadii laga baxay barsiisuu salaamay see tahay adiga salaanta muslimiintu ku salaamay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh markii salaanta la isdhaafsado kadib wuxuu yiri niyo waxaan rabaa mar walba inaan kula cibaadeysto waxaan rabaa in Allahii ko na oomay aan ani adigaba aan isla duceysano hani iloowin waxaan aqaanaa ducooyin ilaahay loogu dhawaado wax walba ka barisidne ku fududeenaayo waxaan ahay ninka ducooyinka siqaani iga faa'iideyso qofka sida uu hadlaa waa shaydaan maxaa is leedahay shaydaan miyaad qof duco baraayo mis shaydaan duco yaqaano waa may laakiin ninkan intaasoo sano intaas ilaahay u taagnaay ay wixii ka xun yihiin in uu shaqaysto jano oo galo laakiin ha iloobina ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu adduunka uu jecel yahay adoomadiisa u soo laabto haddii ay dambi ku dhacaan barsiisa wuu aaminay wuxuu yiri ibar waa u baahanahay duco oo ilaahay waxaan ugu baryaba isiinaayo saaxiib waa u baahanahay ibar shaydaan marka oo dad bara wuxuu u aqriyay eray oo ilaahay loogu fogaanayo eray oo kufri iyo wax xun ku jiraan ayuu u aqriyay laakiin barsiisa arintaas run u malaya oo iska xifdiyay ya Allah arintii markuu xifdiyay oo arintaaneeto waa ku faraxsan yahay wuxuu taagan yahay ducooyin waxa kororsatay adii way ka maqnaan laakiin walaalka muslimka oo saaxiibka oo ku jira arintaana kula yimid wuxuu taagan yahay alxamdu shukri laakiin ma ogbo in eray shaydaan la baray kadib waxa dhacay dadkii tuuladu inuu u tagay waa shaydaan ya inuu dadkii tuuladu u tagay oo mid u marjiyay miduu marji dhab siinaa markii cabar oo hayo siideena hadan mid kale oo ceeji ku dhaga markuu cabar hayo siideena dadkii meel loogu imaaday ma yaqaaniin waxayba arkeenba ayagoo marna la ceejinaa mar la deena mar la ceejinaa mar la deena hadan isla maskaxdood ay wuxuu ku waswaasinayaa waajirantihiin duca u baahantihiin wuxuu iskaga soo dhigay qof bashara wuuna u yimid wuxuu yiri ragaan saan loo haayo ana daabi karo sidee ku daabeynay may wana daabeynayo dhahay waa quraan saara ninkan oo wuxuu iska soo dhigay oo qurux badan oo labisan qofka shakineys mal inuu shaydaan yahay kadib markuu cabaar oo arinta si wado nin wax oo duceena iska dhigo ayuu wuxuu yiri hadan waxaan soo xasuustay nin iga qatarsan waan ogtihiin ninka magaaladan laga jecel yahay oo nin caabudaad badan hadduu ilaahay idin tuugane degdeg u caafimaadaysa